بسم الله والله marka hore way salaamantihiin marka xigta waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa SJS runtii ah urur saxafiyiinta wax badan u qabtay aniga si gaar ah inaan u mahad celiyo ururkan wax weyn abaal ay ugu leeyahay oo wuxuu ka mid ahaa ururadii garab istaagay habeen iyo maalin garab taagnaa markii uu rejiimku isku dayay inuu cabsiyo marka aad iyo aad uga mahad celinaya SJS waxaana kaloo dadaalada wadaan aad ku tababaraysan dhalinyarada saxaafadda ku jirtana waxaan jeclaan lahaa inaad sii wadaan oo aad sii laba jibaartaan taas waa mid xigta waxa la ii sheegay hadda tababarkiina maalmahan inuu ku saabsanaa xorriyadda hadalka xorriyatul qowlka arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaa la socotaan annagu waxaan ka dadku u sheegno ama aan empower garayno ama aan dhiirigelino waa xorriyadda hadalka xorriyadda hadalka waxaa ilaaliyay dastuurka qodobkiisa 18 iyo 32 waxaa ilaaliyay kitaabka quraanka kariimka waxaa ilaaliyay declarationka ama hay'adaha xuquuqul insaanka caalamka oo dhan ilaaliyay marka in hadda 2021 la barto xuquuq xorriyatul qowlka ama dadka lagu dhiirigeliyo maxaa keenay waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waa dawlad laba wajiilo ah marka aan laba wajiilo waxaan ka wadaa marka ay caalamka la hadlayso waxay samaysatay dastuur qodobadiisa 18 iyo 32 ka ilaalinta xogaha iyo xorriyatul qowlka waxay saxiixday dhammaan heshiisyada caalamiga ah ee ka hadlay xorriyadda hadalka madaxda markay hadlayso waxay sheegtaa inay dhiirigeliso xorriyadda hadalka taasi waa waji ay leedahay laakiin dhanka kale markay wajiga kale ay leedahay waxa weeyaan waxaa jirto xeerka ciqaabta iyo dhammaan cabsigelinta iyo xariga ay wado waa waji kale ay leedahay marka waxaan rabaa dawladda Soomaaliya wajigaas ay kula dhaqanta ay caalamka u sheegto ee dastuurka ku qoran ee kitaabka quraanka ku qoran ee heshiisyada caalamiga ay saxiixday ee wanaagsan ee anaga nagula dhaqanta taasaan doonaynaa oo ay noo ogolaato inaan hadalno oo aan dadka la wadaagno xorriyadda hadalka leano annaga haddaan saxafiyiin nahay waxaan nahay dadka empower gareeya ama isha kaliya markii dastuurkeena waxa ku qoran qodobka 10aad ilaa qodobka 4aad wuxuu ka hadlaa xuquuqaha dadka ay leeyihiin dadka xuquuqahooda ma helaan annaga waxaan nahay saxaafadda isha kaliya ee dadka u dhaqdhaqaaqda waxaan doonayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo cid walba oo Soomaali ah in ay saxaafadda faraha ka qaado insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan inaan qayb ka noqono isbeddelka rejiimka waa mahadsantiin